السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتين شرفت لك وحرن كانال كينا برف إنجليش waxaa idinla hadlaya anigu waa Zakariya Maxamed kusoo dhawaada cashirkeeni maanta oo ah cashirkeeni lixaad qaybtiisii labaad oo weli aan dhexda kaga sii jirno boqolka oraahyo aan u isticmaalno sida joogtada ah intaynan cashirkan ku bilaabin fadlan haddaa nagu cusub tahay subscribe share like si aan nagu noogu noqoto dhiirigelin adna uga faa'iidid cashirada iyo muuqaalada aan soo gelino mahadsanid cashirkeeni maanta intaanan ku bilaabin fadlan waxaan kugula talinayaa cashirka ka hor inaad soo daawatid maadaama uu xiriir la leeyahay cashirkaas linkigiisana waxaa ka heli doontaa qaybteeni commentiga aan soo dhigi doono insha Allah sidoo kale waxaa ka arki doontaa linkiga kor kaaga muuqda halkan waxa inoogu qoran haddaan yara faahfaahiyo waxayna leedahay phrases for the buyer after knowing the price cashirkeen ugu dambeeyay waxaan ku barnay somahan qaabkan u weydiin lahayn qiimaha shay qiimihiisa qaabkan weydiin lahayn halkan marka waxaan isticmaalaynaa ama cashirkeena maanta uu quseyn doonaa marka la inoo sheego shaygaas qiimihiisa kadibna aan ka falcelin lahayn qiimahaas hadduu yahay qiimo aan ku qancin marka muuqaalkan wuxuu quseyn doonaa insha Allah qaabka ugu falcelin lahayd shayga qiimihiisa aadan ku qancin ama qiimo qaali ah lagu sheegay marka siyaabo fara badan oo ku tilmaami kartid shaygaas qiimihiisa inuu qaali yahay ayaa cashirkan ku barnaynaa insha Allah marka midda koobaad waxayna u qoran oo dhamaantina wada naqaan waa tan oo aan leenahay that's too expensive taasi aad ay qaali u tahay qiimo lagu sheegay qiimahaas qaali ay kugu noqday marka waa tilmaamaysaa waxaa leedahay that is too expensive taas waa qaali laakiin jumlooyinkan xasuusnaa waxaa isticmaalaysaa qiimaha marka lagu sheego kadib ka hor ma isticmaalisid qiimaha lagu sheego waa qaali soo maaha kadib isticmaal waxaa leedahay kan waa qaali wax ka dhin oo kale ama qiimaha bedel number 2 I am sorry waan ka xumahay but you will have to do better than that qiima lagu sheegay marka waa ka cudur daaratay qiimahaas inuusan ahayn qiimo ku qanciye marka qofka waxa uu sheegaysaa qiimahaas uu ku sheegay qiimo ka duwan inuu ku sheego jumladan waa isticmaali kartaa I am sorry but you will have to do better than that marka hoostan waxay noo qoran af Soomaali ahaan waan ka xumahay laakiin waa inaad samaysaa qiimo ka fiican taas marka qiimihii lagu sheegay aad jeclaan lahayd ama u baahan tahay in laga bedelo tan saddexaad jumladan waa jumlo xawaa qurux badan oo qofka ku qiimeynaysid ama qofka dukaanka joogo aad ku ogaanaysid ama aan ku tijaabinaysid bal inuu kasoo degi karo qiimahaas uu gaday inuu kasoo degi karo adna shaygaas iibsinayso u baahan tahay tusaale waxaa leedahay af Soomaali ahaan shay markii qof qiimihiisa ku sheego laga yaabo inaad dhahdid dukaamada kale shaygaas intaas iibiyaan adiga intaas maxaa u iibinaysaa marka qofka waa cabiraysaa in uu qiimahaas uu daacad ka tahay iyo in qiimihii shaygaas loogu talagalay qiimo ka badan uu adiga ka iibin doono marka waa ku kala saaraysaa marka dukaamada magacyada ma naqaano laakiin waxaan soo qaadanaa ABC dukaamada magacyo badan ay leeyihiin Soomaha ama suuqyada magacyo badan ay leeyihiin marka ABC ahaan oo soo qaadanaa suuqa ama dukaanka magaciisa waxay noo qoran marka halkan ABC are selling it for 10 pound dukaanka ABC wuxuu iibanayaa 10 pound laga yaabo qofkaas inuu ku sheegay 30 20 15 meelahaas inuu ku sheegay marka waa yara qiimo qaali ah marka waxa u baahan tahay in qiimahaas uu naxa ka badashid marka luqada kale oo soo maraysa waxa leedahay dukaamada kale ama dukaankaas wuxuu iibinayaa 10 pound ABC waxay iibinayaan shaygan 10 pound number 4 laga yaabo shayga ay iibsanaysid inuu muhiim ku yahay ama aadan ka maarmin ama baahi badan u qabtid shaygaas marka meelaha kale marka soo fiirfiirisay ama waxa ka caajisaysaa in warwareegaas badan aad gashid marka qofkaan aragtaa in heshiis aad la gaartid heshiiskaas aad rabtid qofkaas in la gaartid marka waxa weydiinaysaa qiimaha ugu dambeeya oo shaygaas iibinayo adiga marka waxa u tahay diyaar inaad iibsatid laakiin qiimaha waxa jeclaan lahayd in xogaa wax uun laga dhimo waxa leedahay what is your final price waa maxay qiimahaaga ugu dambeeya waa fahanteen amalena marka la waa ku celinaya jumlooyinkan marka qiimaha lagu sheego kadib isticmaal laakiin goorma isticmaalaysaa waxaa isticmaalaysaa shaygaas qiimihiisa markaadan ku qancin isticmaalaysaa ilaa mar walba meel walba kuma buuxin kartid insha Allah midda shanaad marka dukaamada qaar waxaa jiro
sheeyaha ama waxyaabaha ay iibinayaan qiimo aan macquul ahayn iibinayaan. Sheyga iyo qiimihiis iskuma qalmaan. Ama qiimihii sheygaas loogu talagalay ama ku iibsan jirtay waxaa aragtay 3 jibaar 2 jibaar la iibinayo. Marka waxaan macquul ahayn waaye. Marka halkan waxaa isticmaalaysaa jumladan that is a rip off. That is a rip off. That is a rip off. Marka ereygan ama jumladan ama phrase-kan ama oraahdan halka inoo qoran markaan af Soomaali ahaan u bedelno waxay noqonaysaa taasi waa qiimo aad u sareysa ama qaali ah. Overprice waa shay qiimihiisa aad qaali u aan macquul ahayn la iibiyo. Waa shay aan macquul ahayn in la iibiyo qiimahaas. That is a rip off. That is a rip off leedahay shaygaas aad u qaali u yahay. Okay, tan lixaad. That price is not for me. That price is not for me. Qiimahaasi aniga la iguma talagalin. Qiimahaasi aniga la iguma talagalin. That price is not for me. qiimahaas aniga la iguma talagalin. Waa qiimo qaali aan macquul kugu ahayn marka fiirisid budgetkaaga iyo qiimaha lagu sheegay isma lahan. Marka waxaa leedahay that price is not for me. qiimahaasi aniga la iguma talagalin. Number 7 waxay leedahay I can't afford it for this price. I can't afford it for this price. Ma awoodi kari qiimahan. qiimahani ma awoodi kari ama qiimahan shaygan inaan ku iibsado ma awoodi kari. I can't afford it for this price. Number 8 ama midda 8aad I am not made of money. I am not made of money. Lacag kama samaysni aniga. Lacag kama samaysni aniga. Weli qiimaha qaaliga ka hadlaysaa. Qofka marka ku tirahdid lacag kama samaysni isla markii uu garanaya inaad ka hadlaysid qiimaha ama qiimaha inaad dacwo ka qabtido aadan ku qancin ba wuxuu ku sheegay qofkaas. Aadan ku qancin. waxaa leedahay I am not made of money. lacag kama samaysni aniga. I am not made of money. lacag ka samaysni. intaan jumlo aan soo baranayno aan soo wado ilaa halkan iyo labada inoo dhimanba insha Allah mid uun isticmaal ama mid 2 3 waa isticmaali kartaa laakiin kulligooda hal mar ha wada isticmaalin. kaliya jawaabtaada ku xiran tahay oo qofka qiimaha uu ku sheego inaadan ku qancin. qiimahaas way badan tahay iga dhin kuma qanacsani waa qiimo zaid ah ama waa qaali zaid ah af Soomaali ahaan awal qaabka uu gorgortami lahayd kan asagana waa salameeshi. 9 you've got to be joking. You've got to be joking. waa qiimo qaali macquul ahayn la yaabtay lagu sheegay halkan. qofka waxaa leedahay waad kaftamaysaa. qiimahaas shaygaas lama iibiyo waa kaftamaysaa. laga yaabo shaygaas mar badan iibsatay qiimo jango ana ku iibsatay taqaanid meel kala timid ama dukaan kala timid qiimihii aad ku iibsanaysay 3 jibaar ku sheegay. waa laga yaabo qof inuu ku dhaco baahan ama isku dayayo inuu ku dhaco. waxaa leedahay you've got to be joking. waad kaftamaysaa. qiimahaasi lama gada shaygan waa kaftamaysaa waa qaali. Okay, mid ugu dambeysay 10aad gorgortankiini wuxuu noqon waayay mid guuleysta ama mid miro dhal ah uu noqon waayay marka waana ku qanci weysay. waxa u baahan tahay marka qofkaas inaad ka dhaqaaqdid. dukaankaas qasab maaha sababahan marka gorgortan aad sameynaysid ama wax iibsanaysid qasab maaha dukaankaas inaad ka iibsatid. dukaamo badan laga yaabaa shaygaas u baahan tahay inay iibiyaan marka waa isfahm weyseen. waxaa leedahay let me check other shops. Let me check other shops. aan soo fiiriyo dukaamada kale. aan soo fiiriyo dukaamada kale. waa iska hubinaysaa iskama iibinaysid laga yaabo qiimo ka raqiisan inaad heshid ama qofkaas inaad ku soo laaban doontido qof dhaama asaga inaad soo weysid ama dukaan asaga dhaama inaad soo weysid. Let me check other shops. aan soo fiiriyo dukaamada kale. cashirkeena maanta halkaas uu inagu dhan yahay. inoo cashirkeena xiga. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.